Bakri Media. بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa maalin tiiraanya leh waxaa naga baxay oo geeriyooday wadan qaali ah oo muddo dheer la tabi doono waxaa geeriyooday Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay Cabdulqaadir Cali Boolay waa astaantii wadaniyadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan daqiiqadaha yarta aan haysto aan idinku sheego inta aan ka aqaan Cabdulqaadir Cali Boolay iyo taariikhdiisa kooban Cabdulqaadir wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho xaafadda Xamarweyne wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa 1930 bishii Febraayo wuxuu wax ku bartay dugsi quraanadii ku yaalay xaafadda Xamarweyne macallimiintiisu waxaa kamid ahaa macallin Maye iyo macallin Moorshe iskuulku wuxuu ku dhigtay magaalada Muqdisho laakiin weligii wuxuu ahaa nin firfircoon oo ka duwan dhalinta la midka ahayd waaga 1947 isagoo nin yara wuxuu tagay xafiiskii SYL ay ku lahayd magaalada Xamarweyne xaafadda Xamarweyne ee magaalada Muqdisho isagoo rabay inuu ka mid noqdo horseedkii SYL markaas ay u arkeen odayaashii meesha joogay in uu da'diisu ay yar tahay laakiin goortay arkeen in uu rabo inuu ka mid noqdo waxay fasax ka qaateen aabihii Cali Boolay Cabdulqaadir wuxuu ka howlgalay xafiiskii saddexda qolaha ee ku yaala xaafadda Xamarweyne wuxuuna ahaa qoraa weligiisba hawsha u firfircoon taasana waxay u sahashay markii dambe inuu wax badan oo sir ah iyo howlihii SYL isagoo nin yara uu ogaado Cabdulqaadir howlo badan ayuu soo qabtay waxaa ka mid ahayd howlihii uu soo qabtay 1955 isagoo nin da'yar wuxuu noqday xogiyihii ururka shaqaalaha Soomaaliyeed 1958 marka hore wuxuu ahaa xogeeye markii dambena wuxuu noqday gudoomiye 1963 wuxuu ahaan jiray agaasimihii wargeyska la yiraahdo Corriere della Sera oo ka soo baxa magaalada Muqdisho 1979 kina waaxda qoraalka ee wasaaradda warfaafinta isaga madaxa u ahaa wuxuu ahaa nin wax badan oo xoga oo sira oo wadankeena yaala og taasana waxay keentay xataa isagiyo qurbaha jooga inuu weligii oo qoraalka wado wuxuu soo saari jiray warsadihii la oran jiray tala aan la roogin waa lagu rafaadaa oo dadku wadaniyiinta ay akhristaan Cabdulqaadir anigu waxaan bartay waqti aad u dambeeyay oo ahaa 2015 waxa ay baray abtigay Allah u naxariistay Maxamuud Muuro oo ahaa asaasiyaashii SYL wuxuu ugu tagay abtigay magaalada wadanka Belgium wuxuuna u tagay inuu la wareego oo abtigu kala wareego dokumentiga ay lahayd SYL dokumentiga SYL ay leedahay waa ka qaalisan yahay hanti kasta wadankeena maanta taal iyo sirta meesha ku qoran waxa soo idil abti wuxuu ku wareejiyay Cabdulqaadir Boolay markaas waxaan bartay Cabdulqaadir Boolay waxaan ku arkay inuu yahay nin ay wadaniyadu la weynta waxaan ku arkay nin qoqobka iyo qabiilka nacib inuu yahay waxaan ku bartay inuu yahay qof xog badan haya waxaan ku bartay qof aaminsan inaan la rajo dhigin magacaan sidan oo isbahaysiga rajana wuxuu ka yimid meesha wuxuu ahaa nin aaminsan SYL nin aaminsan inay Soomaalidu mid tahay nin aaminsan inay cadaaladda iyo sinaantu inay dhacdo maahay uusan marnaba horumarin anagu waxaan nahay ardadii Cabdulqaadir Boolay waxaan ku taaganahay tabti SYL Cabdulqaadir waxyaabaha aan ku xasuusto waxaa kamid ah wuxuu isagoo nin da'weyn ah oo waliba xanuunsan ku hamiyay in shirar lagu qabto wadanka gudihiisa wadaniyiinta loogu yeero oo laga tashado xaaladan murugtay oo dhamaan weysay oo wadankeena ka jirta maanta wuxuu ii sheegay dhowr bilood ka hor inuu arintaas diyaar u yahay wax kasta ay ku kaliftana uu daawadiisa soo qaadan doono oo imaan doono Cabdulqaadir wuxuu u dhigmaa halyeeyadii Soomaaliyeed ee u dhintay wadankii calanka sida Nasiib Buundo kale sida Maxamed Cabdullaahi Xasan oo kale
sidii Axmed Gurey oo kale sidii intii ku dhimatay Soomaalida dagaalkii 1964 iyo intii ku dhimatay iyagoo calanka difaacay 1977 oo kale sidii Maxamed Cabdulla Xalan oo kale heerkaas waa heerka uu joogo Cabdulqaadir Cali Boolay oo lagu xasuusan doono wuxuu xaq u leeyahay Cabdulqaadir inuu helo aas qaran laakiin duruufaha jira aawood waxaa suuragal ah inaysan arrintaas aysan dhicin laakiin waxa aan rabnaa inaan sheegno in qof alla qofkii aaminsan fikirkaas oo kale inuu qaato talada Cabdulqaadir Boolay oo ahayd inaan la rajo dhigin inaan la quusan inaan wadanka lagu sii dayn sidan baaday uu ku jiro iyo in loo gurmado in Soomaaliya mar kale la mideeyo oo ahayd fikirkii SYL qof alla qofkii Soomaaliyeed oo wadaneed ku jirto waxaan ka codsanaynaa inuu Faatixa u maro Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay ilaahay inuu janno iyo naxariis u siiyo ehelku uu ka tagay oo wadanka gudihiisa joogay wadanka dibadiisana ilaahay inuu samari iimaan ka siiyo waa mahadsantiin